ayaa waxaanu degnay dhulka waa dhulka garoon cabdalle ku yaala waxaana siiyey ilaahay ha u naxariisto marxuum Siciid Daawud wuxuu noo siiyey juwanno bal taaga wixii juwannadii hayow waxaan u sheegayaa waa kuwa juwannadii uu noo siiyey ee uu na siiyey nagu dajiyey ilaa taariikhda 2005 waanu lahayn markuu salfaynkii naga saaray ee yidhi aqalladiina furfura aqalladayadii iyo suuliyadayadii waa kuwa harraa naga xiga juwannadayadu waa kuwa sharciga ahaa ina Daawudna siiyey nagu dajiyey dhulka 2017 maayirka gobolka Saaxil Cabdishakuur Ciidin iyo Cabdikariin Aadan Cadde waxay yiraahdeen salfayn baan ka saaraynaa waxay nagu heshiiyeen qof kasta oo baroor haysta iyo mid 6 baroor haysta mid walba wuxuu haystaan dajinaynaa way naga furfureen guryahayagii markii aan rabaadinay ee ay meeshii salfaynka ka saareen ee dadka ay baroor ku taageen dad badan oo xaasi jiro dad qatani jiro iminka hooyadii iyo aabihiiba way ku dhinteen guriga suuliga leh hooyadii way ku dhimatay waa lagu aasay waa odayga dhinacaygu haya dhulkiisii wallaahi baroor kama hayo oo billaahi baroor kama hayo tallaahi baroor kama hayo guryaha la furfuray ee la rabaadiyey ee maamulku yidhi rabaadiya ayay ka mid yihiin markaanu sugaynay sanad markaanu sugnay waxaanu cabasho ballaaran u gudbinay barasaabka waxaanu u geynay codsi aanu ka codsanayno maamulka dawladda hoose inuu dhex noo ahaado oo soo fadhiisiyo oo na wada hadal siiyo wuu u yeedhay waxay yidhaahdeen dhulkiina cid idinkuma haysato idinkaale waxaa idinku haysta hal nin halkaani waxa yahay waa Yuusuf Cambar waxaanu doonay Yuusuf Cambar waanu wada hadalay waxay noogu dareen oo uu maayirku nagu yidhi weli lama arag nin yidhaahdo maayirho gobolka ka maayiroo yidhaahda habar jeclo ha idin kala saarto habar jeclo sharci ma haysato magaalada way degan tahay hadalkaasi midaanu liqi weynay ayuu ahaa maanta aynu taariikhda taagano 15 sano ka soo wareegtayna waan u fadhini wuxuu yiri waa la idinku haystaa waxaan gudoomiye anagu cid nagu haysata ma ogini bal adigu cid nagu haysata oo kan cidna indhaha kama aanu qaadin nagu haysata meesheeda gudoomiyihii waanu tixgelinay hadalkiisii wuxuu yiri toon balaynku ha baxo markuu dhamaado sifaynku dhamaado ayaan idinku soo noqonaya waan idin wada hadal siinaya nagu ma soo noqonin namanu wada hadal siin namu tixgelin waxba naga mu soo qaadin waanu ku sugnay hadana muwaadin raali ka abaanu hay waayo xilku noo haya sidaan u sugaynay hadana maayarkii annaga lugu ayaga ugu tagnay gudoomiye baahi baan noo haysta dhulkayaga waan u baahanay danoo sharciye af buuxa wuxuu waa la idinku haystaana uu naleey nagu kala saari maayo cid nagu haystay noomu keenin waanu cabasho tagnay waxaanu u tagnay barasaabka gobolka oo madaxweynihii gobolka waxaan nidhi bal noo soo fadhiisiya maamulka dawladda hoose cabashaanu ka haysanaayo dhulkayagii bay nagu haystaan markii uu noo soo fadhiisiyay maayarku wuxuu af buuxan ugu yiri dhulka ma idin lahayn dad ku soo yaacay baabada hayday dadkii ku soo yaacay meesha yimi ayaa ahaydona markii toon balankan ka saaray ayaa dub ugu soo yaacday xaqiiqana waxa ahayd inuu isagu guryahayagii furfuray oo uu nagu yiri jooga markii dabeedna aanu yiri maxaa ku leedihiin waxaan ku lahayn baan ku tusayna sharcigii baan tusnay wanadayadii baan tusnay markaanu sharcigayagii tusnay maayarkii wuuna tixgeliyo wuxuu yiri waa runtiino waa leedihiin waa lay mala awaalay leedihiin annaga leh nin Yuusuf Cambar la yiraahdaa baa idinku haysta idinkii Yuusuf Cambar ku soo kala baxa waxaan la gudoomiye meel madaxa ka sareyso la salaaxa ma jirtay adiga nooga horeeyay meesha madaxweynihii gobolka meesha gudoomiyihii gobolka ah nagu kala saar sharcigeeda noo haye idinku kala saari maayo habar jecel isku soo kala saar buu annagu deelay ma nihiin muwaadiniin baanu nahay shicibaha dawlad baa wax kala saartay shicib wax ma kala saare waxaan kugu oran waxay nagu qaadatay dafajiciisu barasaabkii muu oranin mas'uulka naga ahaa ee dalkoo dhan ka ahaa ha ku oranin taasi sharci ku kala saar waanu ka soo noqono waxa la yiri nin babiqi Allah badaya biyadiiduguma jira ninkii uu noo diray baanu qabanay waxaan ku niri maxaad nagu haysataa dhulka yagana naga lahayn bal Yuusuf waxaad nagu haysatay waxa leedahay noo cadee
wuxuu yidhi 4 baloor baan leeyahay nootaayo sharciya baanu tagnay waraaqaanu kala samaynay wixii uu lahaa baanu cadaynay Yuusuf si aanu maayarku mar dambe u oranin waxaas maxaa isku haysataan waanu ku noqon waxaan ku niri gudoomiye Yuusuf Cambarka sheegaysa 4 baloor buu leeyahay 18 qof oo madaxa ka go'ayna waan cid walba leh manihin habar jeclo kaliya hawiyaan ugu jira dhulbaxantaan ugu jira habar yoon isbaan ugu jirta isaaq xaanaan ku jirin ma jirto habar jeclo qurana madaxa yaanu labada qof kaga jira kaga duubin waxaanu niri gudoomiye nagu kala saar waana kane idinku kala saar ma maxkamadda taga buu maxkamadda de qof la soo dacweeyay ayaa dacwadiisa la taga dhulkii oo ninkii uu anaga naleeyahay ana maayarkii idin la tagaya oo uu leeyahay anaga maxay hayto idin qabanayna anaga wuuna diiday maayarkii xoghayuhuna waa la mid oo wuuna diiday waxaanu leenahay qaranka Soomaaliland meel kasta uu joogo muwaadiniinta dulman baanu nahay muwaadiniinta dhulkoodii laga qaaday baanu muwaadiniinta u baahan in garab la siiyo baanu meel aanu degno ma hayno dadka iyaga dulman meel kasta bahna laga soo gaaro oo Cabdishakuur Cidin laga soo gaaro oo ilaa taariikhda aanu niil ayaa dabadeedna aanu deganayn waqtigii laga saaray sirfayga oo ay waqtigii sirfayga laga saaray taariikh badan baa imika ka dambeysay waxaanu leenahay ilaa taariikhda dhulkayga wuu kala qubnaa annana waa dul joognay aanu noo sheegay ninkii uu noo sheegayna waanu wada hadalnay 4 baloor baan aniga dhulbadda laygu keenay waxna idinkuma haysto dhulkiinaasi waa idiin madax bannaan yahay 4 baloor lay keenayna haddii leeyahay ay daynaysan ay daay haddii kalena qaataba arrinka halkaas uu marayaa waxaanu leenahay dhulkayga imika laga bilaabo waa waxaan codsanayaa madaxweynuhu inuu laga bedelo maayirka iyo xoghayaha madaxda ugu sarreysa gobolka inuu naga bedelo wayna cunana wayna gubeen oo dhulkayga bay ku joogsadeen oo waynagu tiiqtiiqsadeen oo waxay nagu shaar bay nagu faanayaan dee ana laga qabto madaxweynaha naga soo gaadho